Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu reer YouTube magacayga waa Short King Warsame kusoo dhawaada YouTube-kayga channel-kayga meeshaan waan ku cusbahay YouTube waan ku cusbahay laakiin waxaan rabaa hadda kadib inaan noqdo reer YouTube oo YouTube aan noqdo meesha zaid aan uga soo muuqan doono insha Allah. Marka su-aasha koowaad aan ku wado intaan barnaamijka aan maanta ku wado gudaha ku gelin, adiga ma igu soo dhaweyn lahayd YouTube-ka, mana jeclaan lahayd inaad igu aragtid muuqayga iyo maqalkaygaba YouTube inaan kusoo bato, ma jeclaan lahayd? Midda kale aan rabo maxaa waaye maanta waxaan rabaa inaan aan dadka isbaro, dadka YouTube-ka maadaama dadka YouTube yaqaanin. Aniga horta waxaa la yidhahaa Warsame, magacayga waa Warsame Cabdiqaadir Axmed, saddexdeeda magac waa kuwaasa. Waxaan reer TikTok ahay, asxaab TikTok way garanayaan aan maleeyaa, iyo Facebook aan ahay, laakiin YouTube-ka ayaan ku cusbahay. YouTube-ka ayaan rabaa inaan kasoo muuqdo oo barnaamijyo maasha Allah oo idin xiisi geliyo inaan idinla soo wadaago. Magacayga waa Short King Warsame, saan horaan kugu sheegay. Waxaan dhigtaa jaamacad ku taala dalka Canada oo loo yaqaano McGill University. Jaamacadaas waxay ku taallaa gobolka Quebec ee magaalada Montreal. Jaamacadaas intaanan imaan ka hor waxaan ku dhashay qaxootiga Kenya Hagadheera. Ninkii yaqaana yaqaano, Dadaab Camps ay ka mid tahay. Nin qaxooti kusoo barbaara ahayn, qaxooti wax kusoo bartay. Laakiin dugsigayga sare iyo dugsigayga dhexe waxaan kaga baxay dalka Kenya gudihiisa, magaalada loo yaqaano Kisumu. Marka waxaan idin leeyahay reer YouTube ma la soo dhaweynayaa mise la ima soo dhaweynayo? Haddii jawaabtaada haa tahay comment hoos igu qor, waxaana ii soo qortaa welcome Short King Warsame.